رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري ayaa ka warbixiyay socdaalkiisii Puntland uu ku joogay maalmahan maruu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe sida ku soo waramay wariyaha Cabdirashiid Bashiir Maxamuud. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdigiisa oo u badnaa golihiisa xukuumadda ayaa muddo 7 ah ku sugnaa Puntland waxaana garoonka diyaaradaha ee Garowe ku sogootiyay madaxda ugu sareysa Puntland golayaasha kala duwan ee xukuumadda iyo baarlamaanka iyo saraakiil kala duwan. Shir jiraayad oo ay si wada jira garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ugu wada qabteen madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa ugu horeyn kelmado sagootina ka jeediyay madaxweynaha Puntland. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Cali Khayre oo muddo usbuuc ah boqosho ku joogay Puntland meelo badan tagay soo kormeeray halkaan aan ku qabanay shirkii wadajirka ee golaha wasiirada oo runtaan isleeyahay wax badan oo isdhaafsi macluumaadka iyo iska warqabka dowladda federaalka iyo dowladda Puntland lagu la fagurayay wada shaqaynta hay'adaha dawliga ee heer gobol iyo heer federaal waxaan rajaynaynaa in booqashada madaxweynaha wasaaruhu ay wax badan ku soo kordhin doonto geedi socodka dowladnimada iyo nabadda Soomaaliya insha Allah ra'iisul wasaare farxad baan kugu soo gootiyeynaa. Ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre oo ka mahad celiyay soo dhaweyntii loogu sameeyay Puntland ayaa ku celiyay in isaga iyo xukuumaddiisu ay marar badan ku soo laaban doonaan deegaamada Puntland. Waxaan idinkaga mahad celinayaa fahamka dowladnimada iyo xilkasnimada. waxaan idinkaga mahad celinayaa shirkii taariikhiga ahaa ee markii ugu horeysay siyaasadda Soomaaliya dhacay oo ahay in dowlad goboleedka Puntland iyo golaha wasiiradoodu ay wada shiraan iyadoo taariikhda Soomaaliya aan golaha wasiirada shirarkooda dalka magaalada Muqdisho banaankeeda aan lagu qaban jirin. Ismaayo waxaan ku qabanay mid laakiin halkan waxaan ku qabanay mid qabashada ka sokoona waxaan la shirnay golihii wasiirada Puntland dhaqan aan rabno hadda inaan si faafino oo aan aaminsanahay inuu dowladnimada dardar gelinayo. halkan waxaan ka noqonaynaa anagoo aad u faraxsan waxaan nimid anagoo faraxsan iyadoo farxadeena laba jibaaratay ayaa noqonaynaa. waxaan u maleynayaa in aniga iyo golaha wasiirada wax badan ku soo noqon doono marka qolalku iska sii diyaarsanaadaan sababtoo ah meeshan anaga indhahana waa noogu furmeen waxyaabo badan oo dhiirigelinahna waan kala noqonaynaa. waxa iigu weyn hadda oo la noqonayo waxay tahay mas'uuliyaddii ayaa ugu sii xuslaatay marka aan nimid Puntland markaan arkay rabitaanka shacabka Puntland markaan arkay hamiga ay dowladnimada u qabaan markaan arkay Soomaalinimadu meesha ay ka joogto markaan arkay sida ay rabaan mar uun in karaamadooda ay soo laabato aniga iyo adiga madaxweyne cid walba Soomaaliyeed oo kale waxaa nagu waajiba shaqadii aan wadnay inaan si dardar gelin. ugu dambeyn in aan ku soo aadnay xafladii 20 guurada Puntland oo golaha wasiirada ay ka wada qayb galeen iyaduna waa wax taariikh ah waana idinkaga mahad celinaynaa raggii iyo dumarkii wiilashii iyo gabdhihii hooyooyinkii iyo aabihii shacab iyo madax dadkii dariiqa noo soo istaagay oo na soo dhaweeyay iyagoo naga fiirinaya rabitaanka ay dowladnimadu u qabaan waxaan leeyahay waxaan idinkaga tagay khayr iyo barwaaqo abaal weyn oo idin haynaa waan idinku soo laalaban doonaa. Cabdirashiid Bashiir, Somali Cable, Garowe.